بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابته إنه السلامي إن شاء الله تعالى ما أنت موضوع ينكهر لنوحوي وموضوع آد وكل حبض بوشة الصوماليات كارهان دليرتها جيلك إمك حين سقوك عليه موضوع وحوي دين عايقة in qofku uu diinta caayo oo nabiga caayo oo rasuulka caayo oo malaa'igta caayo oo dhammaan uu aflagaadeeyo bal iyaynu isla eegi doonaa insha allahu tacaala marka koowaad intaynu u gelin xukunka islaamka qaba iyo dhibta ka iman karta intaynu u gelin haynu si caadi iyo aqli ahaan u kala saarno dadka diinta caaya soomaalida ku dhex jirta khaasatan iminka waynu ognahay inay dhalinyartu ugu badan tahay inta diinta cayda inay dhalinyartu ugu badan tahay laakiin fikir ahaantayda balladaanu kala saaraynaa kolley waxaynu leenahay dadka diinta caayay waa marka koowaad dadka waaweynka ah ee ka horeeya ciyaalkan yar ee lagu canaanay inay maxaynay diinta caayaan waxaynu kasoo bilowno dadkaas waa dadka waaweyn ee wixii 20 ka sarreeya ah ee 30 ka sarreeya ah qaar waa kuwaas oo diinta caayay waxay caayeen waxa weeye diinta ugu caayaan ay u maxay leeyihiin maxay diinta ma sababtaaban ayna koow aan waxaan yiri waa mid koobaad oo inay wax ku soo ritaan yani qofka ay diinta u caayaan ay waxa sameey ku yiraahdaan yani diinta ay flagaadinayaan waa inay qofkaasi ay kaga cabso waa koobaad weeyaan talabaadina waxay kala tahay caado iyo dhaxdooda waxay noqotay inay caadiystaan diinta caayaan taasi waa taxagga dadka waaweynka ah ay naga waaweyn dhalinyar ahaan way dhalinyarta xaggeeda hadaynu u nimaadno kolley waxay la tahay orbo oorka ka soo horeeyay buu maxaynay socodkiisa leeyahay marka ay maqasho kuwii ka waaweynaa ee 20 iyo 30 iyo 40 ka jiray oo iyaga dhaxdooda diinta isku caayaya oo waxaas maxaynay waxaan afka lagu saari karin leh way ku dayanayaan iyaguna wixii oo kale ayay sameynayaan oo maxaynay la isku wada ogyahay qofka ka weyn nooc uu dhaqmo u dhaqmaysaa saaxiibadu way ku jiraan meesha saaxiibada xun waa dhaqan xun run ahaantii dhalinyartana aad ugu xun xagga dhalinyartu anu xoolo lahaa diin caygu iminka kama ah in ha laga baqo maadaama laga baqaadi way soo dhaaftay dhalinyarta awal waxa loo caayi jiray diinta dadku markuu dhalinyartu qofka dhalinyartu u caayo qofkaasi geesi weeyaan oo nin xoog badan oo ha laga baqo oo hebel waa maxay oo hal yiraahday laakiin iminka way dhamaatay la tahay wadaaba waxay la tahay dhalinyarta iminka sababta ay diinta u caayaan waxa weeye kaftan wallahi waa kaftan dhaxdooda ah qofkii qoslayo kaftamayo oo faraxsan ayaa si yar fudud leh waxaas afkiisa la qabsaday waxay la noqotay kaftan maaha laga boqo iyo markii hore ahayd baa oran karaa laakiin iminka qof walba waxay kala noqotay dhalinyarta inay ku kaftamaan badiinta oo yiraahdaan waxa ku sameey ay kafta kala noqoto waana dambi aad weyn masiibo dhan ba ka iman karta yahuudi oo ilaahay ku sheegay ilmu leeyahay ayuu carshu gariiray oo booruhu qarqarxi gaadhay waaba inagooba aynu ku hadlayno hadallo halis ah maxaad u maleynaysaa marka waxaan anigu tala ahaan u soo jeedin lahaa video gaaban oo abuuray inaan ka wantuuno dhalinyaro waxaas waana dambi weyn oo maxaynay dhibaatooyin badan keeni kara kow adigu dhibtu ku keenayo murtad buu ka dhigay qofka diinta iyo rasuulka ay culimadu isku waafaqsan yihiin inuu qofkaasi yahay qof diinta ka baxay oo maxaynay waafaq weeyaan culimadu iskuma haystaan wayna si kala xun yihiin qofka nabiga caayana waa aad buu si daran yahayba marka dhalinyaro aynu ka waantuuno aynu maxaynay diin cay hayno iska dhaafno insha Allah taala haynu ka waantuuno dadka waaweynaynu waxaanu kula talin lahaa anu dadka waaweyn haday toosanaadaan baa oran lahaa dhalinyartu way toosnaan lahayd laakiin kuwii ka waaweynaa markay si kala u dhaqmaan iyaguna way la dhaqmayaan oo waxaan hubaa wallahi u joogayna ku yar oo 7 jir ah inuu diinta caayay muxuu ka yar xagu ka keenay mawaalidkiisa bar waa may walaal waxa bar waa inta ka weyn ma hawaalay inta suuqa socoto weeyaan ee ka waaweyn inta bartay marka dadka waxaynu leenahay dadka waaweyn waxa leenahay afkiina wax fiican ka soo saaraysa dhalinyarta aad u wasakhayn insha Allah taala inaga dhalinyar ahaan aynu ka doorsanaano hadii Ilaahay qadaro aynu iskana ilaalino qofka diinta caayana sida diin islaam qabto qofkaas waa gaal toobaduna u furan tahay ilaa inta aad waxa kale ka soo bixin insha Allah hanu toobadkeena daynu diinta aynahan Ilaahu toobadkeena aynu maxaynay diinteena ku soo noqon Ilaahayna maxaynay binaga aqbal doona toobadeena insha Allah taala
video intaban u sameeyay insha Allah ta'ala waana arin laga damqado way iska badaa dhalinyaro imka waxa la sheegaba madax baa cayda madax waaweyn ayaa waxay waa meel xun weeye insha Allah intay meel xun gaadhin oo ilaahayna inoo cadhownin dhalinyaro iyo dadka waaweyn oo dhammaan cuqaasheena haynu toobad keeno ilaahayna hoos soo noqonayo intaban video insha Allah u sameeyay kuna soo koobay billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh